laakiin si saan imika social media ku noqday baan haysaa marka imika askari baan noqday malaha ana waa tababar badan baan qaatay saan kolbada u jiro social media wax walba la kulmay malaha imika waxaan heer gaarsiisanahay haddaan arko qof aad iiga soo horjeeda iyo haddaan arko qof imikeedan intuu arko wax qaldaniga aaminsan askari waxa iska caadiya nool qofku ka soo saarin karo ila aad heerkaasan gaarsiisanahay fahmi barnaamijka hagaajinta maqalka iyo muuqaalka maanta waxaa marti noogu ah nin culus xagga miisaanka ma aha laakiin dhanka lagu culus yahay cabdirasaaq cabdi oo dirisle ku magac dheer diris lagu soo dhawow Sweden aad baa mahadsan tahay gaar ahaan Stockholm aad baa mahadsan tahay waan dhawahay Sweden ku dhawahay meesha uu joogto ku dhawahay channelkaaga ku dhawahay meel walba aad baa mahadsan tahay boqolkiiba soo dhawow muddo xoogaha nala joogtay Sweden fiidiyoyadan arkaynay magaalooyin kala duwan ka waran jawiga Sweden iyo mala qabsatay wallahi Sweden macnaha aad buu fiican tahay maraa waa meeshii ugu horeysay ee marka laga soo tago meelaha ay Soomaalidu degteen inagu leenahay ugu Soomaali badan macnaha imka tusaale ahaan Ingiriis oo kale ma soo barbardhigi karna laakiin waa meel Europe ah oo macnaha haddana Soomaali badan ay joogto ma fahantay marka waa meel fiican uu qof walba la qabsan karo hadduu in badan Europe joogay iyo hadduu imikada soo galayba sababtoo ah Soomaalidu buu arkay ma fahantay marka Sweden aad buu fiican tahay waana meel la qabsan karayo si easy waliba aad waxa noo sheegtaa wixii ugu fiicnaa ku aragtay Sweden wixii aad ugu xumaa ama aad tiri waxaan kama helin iyo luqadda Swedishka wax aad erayba ka bartay okay wixii ugu xumaa sheegay horta xumaan laguma tilmaami karo laakiin aanan ka helin jawiga weeyaan sax aanu inta soo noolaa wali jawi saan oo kale ma arkin macnaha aroorta soo toosa cadeed baa jirta gelinkii dambe roob baa jira haddana meelaha markii maghrib gaadho dhaxan baa jirta macnaha jawigaas oo kale waa markii ugu horeysay intaan noolaa arkay anu haddaan cadeed kusoo tooso cadeed ma ku dhamaysan jiray haddaan kusoo tooso roob ma ku dhamaysan jiray marka taasi wax iga yaabi ahayd ta kale macnaha fiican oo ilaa wax aan ku farxay waxa weeyaan Soomaalidu horumarka ka sameysay meesha kulli marka Europe kale loo eego anu waxa oran karaa Sweden Soomaalidu horumar fiican bay sameysay mana waxa arkaysaa dhalinyaro badan oo kaligood istaagay oo wax qabsanaya inkasta dadku yiraahdaan qof Sweden ka yimid ayru buu qaatay lama shaxadi kartaa wadankeeda Sweden ka yimid taa waran Sweden baa ka timid lagu shaxadi karo qof ay qaatay laakiin wallahi dad badan oo dhalinyaro oo macnaha horumar fiican sameeyay oo macnaha iyagu gaariga isku wada wax walba igu qabsaday waa wax lagu farxataasina tii kale wadi samaxay astaad luqadda wax erayo ugu soo dulduulay luqadda wallahi erayo aan imika fahmay dad qofku ilaa way jiraan laakiin tan aad u xifdsanaa marka hore aanoo joogin baan gari waxa taak oo kale fiiran waxaas rondel waxa crash ka erkaan naqaano meesha lagu yiri oo kale adu waxyaabahaas iyo waxyaabo ay dadku markay yiraahdaan aan fahmay laakiin si oonan afka sheegi karin faati ma khatar laba erayo culus sheegtay dirisle waa kuma haddaan ku weydiiyo su'aashaas dirisle waa wiil Soomaaliyeed waa YouTuber social media ku jira haddii kulli la raadiyo waa la helayaa waa wiil dhalinyaro ah oo macnaha adu meelaha 3 sano iyo dhowr bilood ku jira social media gaar ahaan YouTube ka u badanahay macnaha imikana waxaa joogaa qurbaha caadaanta waxaan joogaa Austria macnaha Austria joogaa laakiin fiidiyoga waa Sweden marka dadku soo goobila dirisle qofku yahay sax dirisle muddo gaaban ayaa waxa ku sameysay success ama waxa sameysay horumar aad u dheereeya marka ay bulshada Soomaaliyeed ku barteen meel kasta joogaan sax waxa heshay dad kugu xiran oo marka aad u fara badan maxaa asaas u ahaa yani in aad gaashid guushaas aad muddo yar ku gaarto wallahi horta waxa oran karaa dadaal ugu horeysa dadaal bay ahayd oo macnaha dadaal badan ma sameeyay macnaha dad u fiirsatid inta fiidiyo sameeyay aad buu baahan tahay marka taasina dadaalin weeyaan iyo dad
aan qulubtooda degay macnaha dad taageero fiican oo macnaha dee ku taageeraya oo mar walba ku ag taagan macnaha haddii aad dee wax cusub imikadan furtidii haddii aad wax hore lahaydba mar walbaba ku daawanaya ama meeshii soo raacayo meeshii mar walbaba kula jooga taana waan oran karaa ta kale sii oran kara waxa weeye anigu waxaan ahay dadka ku jira dadka yidhaahdo waxaabaan samaynayaa ay adag tahay si waxa ku joojiyo wili waan samaynaya haddana waxaabaan samaynaya yidhaahdo waan wadaa hadda iska kii soo celisa mooyaane ilaa aan meel ka gaaray waxa aan yidhi waan samaynayaa waan ku fiicana fahamsa taas marka taasna way ku jirtaa kulli dadku badanaa intii waxbaan samaynaya yidhahdaan bay yara bilaabaan hadday arkaan wax caqabadii waxa way ka leexeen fadhiya waxaan dhibaata ka socotay naga leexi laakiin ma ogo haddii ay wax dhibaato ka timaado in dhibaato laga baxayo haddana meel caadi la tegayo kulli mar walba qofka hadduu horumar samaynaya dee dhibaatooyin badan wala kulmaya ama laakiin waad dhaafaysaa muhiimadana taasay ahayd marka aad waxaa oran karaa intaas iyo dee kalsooni aan yara muujin sirin su kalsoon kulli wax walba samayn kartaa aad iyo aad xagee ka keentay kalsoonida markaad hadlaysid sidoo kale ma fududa in qofku intuu kaamiro soo hor fadhiisto wuxuu doono sheegay dad baa jira ka cabsada laakiin adii kalsooni baa leedahay xagee ka keentay kalsoonidaas wallahi waa su-aal aad u fiican horta ka hor social mediaha macnaha ma ahayn dadka saas isugu sii kalsoonee macnaha amba waxaan anu kulli kaamirad dad ugu jiraan kaamirada ilaaligeed leeyahay ka cabsaday waxa anu ma ahayn horta kulli markii hore saas mana kaamirada kama cabsan jirin markii hore iska caadi ma iska ahaa laakiin se saan imika social media ku noqday kuma nahay saa marka imika askari baan noqday ma macnaha waa tababar badan ma qaatay saan kolba dee ugu jira social media wax walba la kulmay macnaha imika waxaan heer gaarsiisanahay haddaan arko qof aad iiga soo horjeeda iyo haddaan arko qof imikeedan intuu arkay wax qaldaniga aaminsan iska yidhahdo waxa iska caadiyo normal qofku ka soo horjeesan karo bini aadan heerkaasaan gaarsiisanaya fahmaysaa marka aad waxaan oran karaa waa waxaan iska dhaadhiciyey sababtoo ah dee haddii aad mar dad ku taageeraysid waad helaysaa qof kaa soo horjeeda ama dad kaa soo horjeeda ma fahamtid marka maskaxdooda ma ka dhaadhiciyey dadkaasina u jiraan dadkaasina u jiraan sababtoo dadna way fiican dadna way xun yihiin marka wax walba waa aqli gal taasaa ka dhaadhiciyey maskaxda su-aasha ku xigta rabay ahayd inaan ku weydiiyo yani markaad qof dad aad soo hor fadhiisatid dee dabcan sidaa sheegtay dadna way kaa helayaan dadna way ku nacayaan boqolkiiba boqol waxaana dhib badan qofka inuu akhriyo isaga meel marka lagu caayayo ama videogiisa hoostiisa ama kommentaarka meesha la dhigo kale sidee markaa aad adiga sidee yani kaaga degtaa yani caayadaa badan ee meesha lagu soo qorayo ama dadka aflagaadada kugu soo qorayo maxaa samaysaa horta mid baa jirta oo aad u muhiima badanaa waxaa jirta dee majority minority somaha badanaa horta dhibaatooyin badan lama kulano haddaan yidhahdo taas qalad baan sheegay ma odhanay dad badan oo meel taagan iga soo jeeda jira laakiinse haddii uu qofi isku dayo inuu kaa xanaajiyo ood xanaaq wuxuu rabay macnaha uu kaa rabay dana xanaaqid oo wixii si kale u bedeshid waxaan hubaa qofkaa rabay inuu kaa xanaajiso oo ninkaa waxbaan ku dayo iga xanaaq waayo marka dambe taageero iska noqonaya marka muhiimadu waxa weeyaan haddaa aragtid qofta ka soo horjeeda waxaad samaynaysid inaad adiguna ka soo horjeedsano tiraahdo qofkaas wuxuu yahay sababtoo ah saasuu rabaa wixii way sii soconaysaa marka laakiin haddaad qofkii isagoo xanaaqsan aad yara dejisid xusana wallaahi qofka saa rabay inuu noqon babada waxaan rabay inuu xanaaqo wax soo qorqoro ama uu wixii sheego laakiin way dhaamaa marka waxa oran lahaa dee waa akhrinaa marka qaarkood waan aragnaa marka qaarkood waan lagu yidhahdaa marka qaarkood waan dhaafnaa laakiin dad badan waxaa jira Soomaali iyagana youtuberada caanka ah ku jiro iyaga naftirkooda waxa ka dhaxdhaco marmar inay iskhilaafaan ama dee videoyo ay isku caayaan ama isku aflagaadiyaan ma kugu dhacday weligaa أنت ودقيقة ببضل ها معنا واركع ضد ثقل ده وحوى مسن أما أنا جا كمان ثقل ده وحوى مسن هاي ويجران فيديو حتى كل يوتيوب كده والله تو ويجران فيديو البلان تضو طوبة تناي صوت طوبين كلها ويجران ضد عن فيديو على أساس كده طوبني لكن سي مرور بوا أنا وحاسكو أركاون markaan eegada fiidiyogan sameeyay dadka falcelintoodii inaanu yara saxsanahay sababtoo ah hada fiidiyo sameeyay imika ay dadku qalad fahmaan imika wali Soomaaliyeed dambe aad buu bartay dadku inay dislike saaraan waagi hore saamil lama aqoon baba aad buu bartay dadku hada arkaan in wax ku dislike ba wala TikTok baa laga yeeraa qof kale nin ba xaga wax qaldan sameeyay soo saaraa ma faadi sidii ninkii ruushka taas oo kale imika marka haddii aanu qalad badan sameynay kulli dadku dee dislike badan bay saari lahayn marka aanu kulli waxyaabaha aan yiri ama waxyaabaha aan sameeyay fiidiyoasha YouTube ku jira wax saxsan ma markaa sababtoo ah dadkoo dhani way ugu raacsan yihiin waxa aan sameeyay ma fahanti marka ha inta ba taariikh kaga jawaabi lahaa videoyadaada
ma jiraan qaar ama mid ka mid ah oo aad leedahay aad ku tahay yani aad ku faraxsan tahay inaad samaysay example waad leedahay waa فيديو أن kii aad ugu ugu fiicnaa oo farxay kale. والله دو فيديو aan oran karaa macnaha fiidiyoyaashaydii maxaa la yidhahdaa kuwa aan aad ugu farxo isleeyahay fiidiyoyaashaas waxaa jira horta ani been ma sheegay waxaa jira fiidiyoyaal aan sameeyo oon editgareeyo oon geliyo oon dib u daawan iyo fiidiyoyaanta editgareeyo Haddii aad aan dib soo u dhig aan dib u daawo haddaan anu fiidiyoga dib u daawo taa macnidu waxay tahay fiidiyoga anaa ka helay macal ma fahantay Sax. marka fiidiyoyaasha badanaa aanu dib u daawado qaar baa 3 jeer daawadaayo saan wax u yidhi haddana sanad kadib kusoo noqonaysa ilaa fiidiyoga yara daawo u fiicnahay marka fiidiyoyaasha aan mar labaad iyo mar saddexaad daawado anigu waa fiidiyoyaasha macal ani cajabiyey marka anaa macal ka helay weyn macnidu ma fahantay marka kulli fiidiyoyaasha aan ku tilmaami lahaa kuwan aadka u jeclaade manaa ka doortay kuwa kale هذه maadaama hadda aad muddo dheer ku jirtay youtube-ka qof hadda bilaabayo kale ama mataqaana ama aanan haysan subscribe badan ama aanan wax badan ka ogeyn youtube-ka maxaa kula talin lahayd horta badanaa iminka soomaalida mid ay samayso aad u dhib yaroon arkay baa jirta taasi oo ah inkastay xumeyn in la isku danaysto ma fiicna fahamtaa laakiin waxaa jirta mid aan arkay oo ah in uu qofku hadduu doonayo inuu shaqada youtubernimada qabto la saaxiibo dad youtuberina marka haddii dad lagu arko wejigaaga waa la baranaa hadhow dadku iyagaaba ku dalba doona ninkaan mar walba ku aragnaayo youtube mu samaysto ma fahantay markaa soomaalida imkaan ku arkay dad saas sameeya oo macnaha marka hore isku daya inay youtube kasoo ag muuqdaan kadibna channel la samaysta marka saa lagu bartay saa lagu bartay taas waa toogu dhib qof samayn karo laakiin danaysu ma fiicno danaysu waxa la jira taas qurux badan fahamsan yani inay daacad hawraacin hadan hawraacin laakiin taas imika waa inay daacad ka tahay qofka dee wuxuu sameyn ku taageersan tahay adiguna isleedahay dad horumar samaysan ma xumada soo saartii la wada cunayo way fiican tahay fahamtay dadku inay gaajo qaarna directionaan tu kalena u jirtaa oo ah wax waad samayn kartaa laakiin dadka qaar waqti bay ku qaadataa dadku isku wada mid maaha dadka qaar waxaad arkaysaa sanado iyagoo ku jira aan macnaha dee isku mid ahayn qof bil ka hor soo galay marka nasiibna uu jiraa kolley laakiin harajo dhigino damiimadu waa taa harajo dhigino dadaalun waa mid horta weyn dadku ogaadaan anagu soo imika haddii la eegada soomaaliya youtuberada waagu kuma jirno haddii uu qof youtuber soo biiray qasab waan aragnay waa inuu taa ogaada qof hadduu cusub yahay qasab boqolkiiba 99 waan aragnay waa qasab haddii uu qofku mar youtube-ka soo galo uu maxaa la kun subscribers waxa gaaro video alsan sameey ma aragtay qasab waa la arkay marka ma garan kartid dadku daawanaya ma garan kartid inuu farmaajo ku daawanaya marka si wado waxaad sameynaysaa taas ugu muhiimsan jadwalkaaga oo kale maalinlaha ma noo sheegi kartaa siduu maalinta ku bilaabatid ilaa good horta anu markaan imika tusaalahaan soo qaadana maanta oo kale videogan beri soo dhigi lahaa waan garanaya wuxuu yahay wuu ii samaysan yahay macnaha waa private public ma ka dhigaya waa maaroortaba marka waxaan horta beri qabanayo waa qabsan way sii qabsan tahayba marka waxaan isku dayaa mar walba si aan haddii lacala maanta aan waqti hayn aan wuxuunu hayo inaan si yar horeysiyo waxyaabaha aan sameynayo macnaha videoga aan maanta beritol soo dhigaya maanta uu samaysan yahay marka haddaan beritol mashquulo video waan haystaa marka saa dambe video kaloo sii samaysan karaa marka waa ka horeysaa marka waan ka yar horeeyaa maalintii horaan kasii yar horeeyaa si ay haddaan lacala mashquulo kale aan wuxuu hayo marka aniga badanaa waxaan sameey maalintii waxa weeyaan dee sida dadka caadiga ah cunaa sida dadka shaqada caadiga u tagaan oo kale marmarka qaarkood dee video sameeyaa wuxuu ma edit garayaa iyo dee baashaarka iyo iska normalkii waxyaabaha ay dhalinyarada kala qabato oo kale ma qabtaa kadibna waa saas macnaha adigu waa sida dadka caadiga ay qabtaan oo macnaha anu aan ikhtiyaar leeyahay macnaha xilligaan doono wax sameynaya xilligaan doono iska daynaya laakiin waa dee og tahay in waxaan ay tahay waxaad ina qabatid tahay qasam inay tahay ogaa maana imikaani waxay iga gaarsiisan tahay heer aan ogaay waxaan qabanay in yahay YouTube kale tuu shaqo tahay taasaan imikii gaarsiisan tahay fahamsan iyo wixii adoo jecel markaan anigu soo gelinay Ismail anigu markii uu Ismail lahayn baa caamad noqonaysa taas waa mid Ismail lahayn YouTube lacag sameynaysa marka waxaan iska jeclay wax marka aan islahayn ma aha oo ogeyn laakiin waa waxaan iska jeclaan kadibna dee nasiib waxaan kala ku weydiinayaa dhalinyarada iskuulada ku jira hadoo kale maxaa kula talin lahayd horta waxbarashadu aad bay muhiim u tahay boqolkiiba boqol aad bay muhiim u tahay laakiin anu waxaan iska yar ahay dadka dhegeysta dadka
horumarka sameeyay tusaale dadka adduunka ugu lacagta badan loo kale dadka macnaha horumarka la taaban kara sameeyay dadkoo dhan in wax iska yiraahdo ma qof kale dhageysta badan oo qof horumar sameeyay marka waxaan yara maqlaa mar walbaba waxbarashada haddaad mar garanaysid kow loo geeyo waa 2 saac dadka 5 loo geeyo waa 10 maxaa la yiraahdaa aad wax akhrin karaysid hormood samayn kartaa uma baahnid inaad degree iyo qaadatay diploma iyo waxa ma fahmaysaa marka mid way fiican tahay oo way fiican tahay haddii aad wax akhrisato wax barid sababtoo waxaa la yidhi hore baa loo yidhi qofku haddii uu kaa wax akhris badan yahay kaa maskax badan yahay sababtoo waxyaabo badan aad u garanayn buu garanayaa ma fahantay waxbarashadu way fiican tahay haddii aad haysatid waxbarasho oo meel waxbarasho la joogtid ood karaysid wax iska baro haddii aadan karayna qasab maaha inaad wax baratid haddaad karayndee dib ma lahan waxyaabo badan oo samayn karto lagu horumar lagu sameeyo horumar lagu gaari karaa jira yani raadi wax ku fiican tahay marka aad horumar samayn karto sababtoo aad taas aad ugu muhiimsan dadka dee waxaadan ka caajisay sababtoo wixii haddaad jeceshahay kama caajisay dad wixii jecelayna laguma karin markaad sii kacisid bad karaysaa soo masaaniyo meesha oo sii socotaa ma fahanti marka dadka taa ma goolin laakiin waxbarashadu aad bay muhiim u tahay aad bay muhiim u tahay dirisle aad ba u maasan tahay kusoo dhawo Sweden Stockholm gaar ahaan waxaan filayaa inaad dad badan oo caan ah la kulantay wadankan la degan runtii waana arkay videoyadaadii dad kala duwan aad la sameysay Sweden gudaheeda runtii waxaan ku leenahay mar koowaad iyo mar labaad kusoo dhawo hadda magaaladii waa xirxiran in ka fiican intaan ayaan wada baashaali lahayn intaa ka soo dhax galo magaalada xirxiran waxa aniga ka yimid dad og tahay say tahay tan xirxirni kuma tilmaamteen annaga waxba face mask waan xirnaa maxaa la yiraahdaa restaurantkii meelaha ma furno ninka naga daran macnaha marka xagga anuu ku raaxaysanaya ya xagga ninka dhibaatada waxa weeyaan alla yaa bintiin xilliga 8 la kala ordayo Soomaaliya 8 meel walba la xiraa anaga marka waa idinka daranay marka aniga meeshan imika raaxay tahay macnaha way iga fiican tahay meelaha kale sababtoo ah meel walba furan meesha dadka kartaa marka aniga wali waxa dareemay in waxyaabo badan la qaban karo adigana waxa ku leeyahay maasan tahay 100% نسوي دويد لبضة هذا بقى يا باش هتكده أونسين وشلال لين لايك سي سارتين سي شير كريسين محل سبسكرايب نسارتين وإني مدعلنا وكم سنتين تغييرات تعوشة يوم يدعموا النجاح عجسين المرور بالنسبة لابنسين انتهى بقول الله تعالى كوكب قبيلة 4 كم قول مع سنتين